أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء waxaan ogaanay in dad badan ay aaminsan yihiin in cudurrada qaarkood aan laga buskoon taa liajligeed waxaan ugu kaliftay annagoon jeclayn inaan soo bandhigno dadkii bini'aadanka ahaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala u caafiyey haddana dantaan ugu khasabtay si ay u ogaadaan kuwa aaminsan in cudurrada sida dhiigkarka sonkorta kansarka cudurrada aan laga buskoon ay sheegaan dhakhaatiirtu dadkii ka buskooday ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka caafiyey baan soo bandhigaynaa wiilka asagana wuxuuna soo weydiiyey wuxuu yidhi gabar baan qabaa gabadhu muddo badan oo sanad iyo wax la jira ah baa waxaa heshay cayuun oo isha gabadhan wuxuu yidhi waxaan geeyey meelo badan lagu quraan saaro markii la quraan saaro wuxuu yidhi waxay leeyihiin waxay ku jiray waan ka baxnay oo waa tagnay meelaha qaarna maba hadlayaanba culimmada ku hadli maayaan muddo hal sano ah iyo bar ayaan ka daba wareegayay oo daawooyin badan u raadinayay meelo badan waa geeyey marka wuxuu yidhi sheekho maxaad igula tali lahayd waay bismillaah intaanan horta talada gaarin cayntu sidee bay qofka u qabataa taasaan horta ka hadlaynaa kabacdi waa taladii iyo insha allahu tacaala waan bixin doonaa cayntu horta qofka waxay u qabataa wadna garaac ama daal bay ku keentaa qofka bini'aadanka xataa waxay ku keentaa indhihiisu inuu yani maaragtay ay yaraadaan aragtidiisu way keentaa oo dhaforaday ka qabataa cayntaa markaa iyada ah caynul xaq mid xaq ku dhacda way jirtaa mid aan xaq u dhicinna way jirtaa waxaa laga yaabaa qofka laftigiisu inuu dulmi sameeyey oo qof kale ku sameeyey ama hadal xun oo aan u qalmin qof muslina inuu ku dhahay qofkii uu ka naxay caynta marka labaa loo kala qaadaa mid xaq ku dhacday oo yani si xaqa u dhacday oo qof kaga naxsaday hadal taas waa la waaniyaa waa la wacdiyaa quraan badanna waa la saaraa waxaana loo sheegaa qofkanu inuu yani maaragtay iska cafiyo oo faraha uu ka qaado sababtoo way adkaataa qofka inay ka baxdo haddii dulmi qofkan uu sameeyey oo qof kale oo muslina uu ku sameeyey okay waxaa fudud marka haddii la helayo qofkii ileeyey tusaale ahaan ee ishu ay ka dhacday haddii la garanayo ama waxa hadla inta la xaqiijiyo ay qofkii sheegayaan magaciisii in qofka sidii nabiga sallallahu alayhi wasallam nasuustiisa ku cad in weyse looga qaado qofkii oo qofka lagu shubo hadduu raalli ka noqonayo yani qofkii wax ileeyey haddii la helayo oo shayga ugu waxa uu yidhi taas ayaan iloobi waxa uu yidhi gabadhu waxay isla dhigi jireen jaamacad oo arday waa hor jaamacad isla dhigi jireen waayo haddeertaan waxaan joognaa dalka ingiriiska marka wuxuu yidhi muxuu ahaa dadkaas ma heli karno oo dadyo noocaas oo kale culimo badan ayaa ii sheegtay laakiin dadkaas ma heli karno marka maxaad igula talin lahayd waxaa lagula talinayaa inuu 6 months uu dawo qaato dawo cirib tiraysa dawadaas waxay samaynaysaa waxay la dagaalamaysaa ishii markay la dagaalamto qofkii waxa u soo laabanayo ishu wixii ay qofka ku dhex samaysay dhibkii ay samaysay tusaalaan hadday cunto ka celinayso cuntadii baa soo laabanaysa hadday hurdo ka celinayso hurdadii baa soo laabanaysa ilaa iyadoo ay ka baabaado oo meesha ay ka baxdo maxaa yeelay qofkan marka ishu ku jirto cuntadiisu way yaraanaysaa wuu caatoobayaa wuu baaba'ayaa dhiig la'aan baa ku dhacaysa waxaan oo dhan neerfayaashii baa xanuunaya marka dawo 6 bilooda la siiyaa oo qofku uu qaataa ilaahay subxaanahu wa ta'aala adoonka uu ku caafiya quraanna waa la saaraa